kusoo dhawaada warka kala sama TV qodobadaan idin ahayna waxaa kamid ah dawladda Itoobiya oo hor istaag ku sameysay safar madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagi lahaa Addis Ababa xogaa laga ogaaday socdaalkaas ayaan eegi doonaa taliyaha sirdoonka Israa'iil ayaa waxa uu safarkii ugu horeeyay ku tagay dalka Morocco waliba safarkan waa mid la shaaciyay hogaamiyaha Shiicada Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa safar dhif iyo naadir ah waxa uu ku boqday baa la yiri dhismaha xarunta lagu bacrimiyo nuclearka xilli bariga dhexe ay xiisad ka taagan tahay oo ku aadan Mareykanka oo dhawaan shaaciyay in duulaan ku qaadayo Iran sidadban iyo waxaan kale oo eegi doonaa toogasho 3 qof lagu dilay meel suuq ahayd oo ku taala dalka Mareykanka qodobadaas waliba kuwa kale ayaan daawada eegi doonaa u diyaar garoobay iyagoo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu safar ku tagi lahaa dalka Itoobiya caasimadda magaalada Addis Ababa sida xogaha lagu ogaaday safarkan ayaa qorsheysnayd isniintan maanta ahayd balse dib u dhac ayaa ku yimi ila wareedka laga helay xukuumadda Addis Ababa ayaa waxay sheegeen inay ka cudur daarteen madaxda dalkaas maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu sabab la xiriira ay u qaabili karin madax kale oo dalkooda imanaya jadwalkana uu ka buuxo waxay noqonaysaa safarkii lixaad oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku tagay Itoobiya balse dib ayuu u dhacay safarkaas hore waxa uu tagay wadamada Kenya, Djibouti, Imaaraadka, Turkiga iyo waliba Eritrea saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay ka gaabsadeen ka hadalka safarkan dib uga dhacay Addis Ababa ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ku aadi lahaa iyagoo ku soo koobay in aan weli la gaarin socdaalkaas horey waxa u jiray tallaabooyin ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo la aaminsan yahay inay xukuumadda Addis Ababa ku qancin markii ay go'aanadaas ay hil u noqdeen dawladaha ay ku loolamayaan biyaha wabiga Niil sida dawladda Masar oo saaxiib dhow la noqotay dawladda Soomaaliya Itoobiya ayaa la aaminsan yahay inay saameyn xooggan ku yeelan karto arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya gaar ahaan culayska midda kaga imanaysa dawladda federaalka marka laga hadlayo joogitaankeeda dawlad goboleedyada qaar oo ciidamo ay ka joogaan toddobaadkii la soo dhaafay Itoobiya waxaa tagay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la aaminsan yahay in hadda isaga laftirkiisa ay ishayaan oo xurguf ay ka dhaxayso fila Soomaaliya isagoo la kulmay madaxda dalka Itoobiya oo ay ka wada hadleen sidii ay wada shaqeyn dhinacyo kala duwan ah sida dhaqaalaha iyo amniga ay u dhaxmari lahayd Puntland iyo Itoobiya lama saadaalin doono madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu kala soo kulmi doono marka uu tago safarkiisa magaalada Addis Ababa xilli ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uusan ku faraxsanayn habka dawladda federaalka ay wax ku bilowday iyo dhaqdhaqaaqyada guud ay isticmaalayso dadka arrimaha siyaasadda gobolka u dhundaloola waxay leeyihiin Itoobiya ayaa laga yaabaa in colaadin rasmi ah ay geliso xiriirkan xun ee hadda bilowga ah ee dawladda federaalka iyo waliba dhinaca dawladda Itoobiya soo kala dhaxgalay hagaag daawadayaal karsame TV iyada la socotaanay bal markana taliyaha sirdoonka Israa'iil ayaa safar la shaaciyay wuxuu ku tagi doonaa isbuuca soo aadan baa la yiri dalka Morocco ee galbeedka qaaraddan Afrika Aviv Kojavi oo ah madaxa sirdoonka ee howlgalka Mossad ee Israa'iil ayaa waxa uu sheegay wargeys ka soo baxa dalkaas in socdaalkan uu yahay mid lagu xoojin doono xiriirka ka dhaxeeya labada dawladood ee Morocco iyo waliba Israa'iil dalal badan oo Carab ah ayaa waxay hadda u muuqanayaan mid ay cilaaqaad dhow yeelanayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa kamid kuwa soo dhaweeyay in wada shaqeyn iyo waliba xiriir toos ah ay la yeeshaan Israa'iil wasiirka difaaca ee Israa'iil Benny Gantz ayaa sanadkii hore bishii November isaga iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha Aylat Shaket oo bishii June isagana waxa uu tagay dalka Morocco halkaas oo Israa'iil iyo Morocco ay si hordhaca u gaareen heshiis ku saabsanaa wax wada qabsiga tiknoolajiyadda amniga militariga dhaqaalaha iyo waliba dhaqanka iyo sidii wada shaqeyn iyo xiriir toos ah ay u yeelan lahaayeen bishii Maarso ee sanadkan wafdi ka socday Israa'iil ayaa waxay markii ugu horeysay tageen ayaa la yiri Morocco halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay wasiirka warshadaha dalka Morocco iyo waliba wasiirka dhinaca horumarinta warshadaha Israa'iil ayaa iyaguna waxa ay saxiixdeen heshiis taas oo hadda buddhig looga dhigayo in magaalada Rabat ee caasimadda dalkaas Morocco ay soo dhaweynayso sida qorshaha uu ahaa 3 maalmood ayaa la filayay in uu qaato safarkiisa oo 18 bisha July ku beegneyd laakiin dib u dhac ayaa ku yimi xogtan ayaa hadda waxay sheegaysaa in
isbuuca soo aadan uu noqon doono safarkiisa taliyaha sirdoonka Israa'iil uu ku tagayo Morocco. wararka kale ayaan usii gudbaynay bal markana xiisad ayaa waayadanba ka jirtay bariga dhexe marka loo eego madaxweynaha Mareykanka oo tagay meelo kala duwan oo dhinacaas iyo waliba wadamada bariga dhexe Israa'iil iyo Sacuudiga iyo wadamo kale ayuu cagta marinaya ninkan. hase ahaatee hadalkii uu jimcihii sheegay madaxweyne Biden ayaa qalqal abuuray oo ku aadnayd in ay doonayaan gacan bira inay ku qabtaan wadamada bariga dhexe, taas oo dad badan ay saadaaliyeen duulaan lagu yahay xukuumadda Tehran. haddaba hogaamiyaha shiicada ugu sarreeya dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera ee Qatar laga leeyahay in aysan wax go'aan ah ku lahayn wadamada reer galbeedka samaysiga hubka nukliyeerka oo ay Iran gacanta ku hayso. Kamal Qarazi oo ah afayeenka u hadalay hogaamiyaha shiicada Iran ayaa sheegay maalin kadib hadalkii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inaanu ahayn mid waxba aysan culays ku ahayn hubka iyo arrimaha nukliyeerka Iran iyada u madax bannaan. waxaana la arkay baa la yiri oo dhif iyo naadir iyadoo ah sawirro la helay madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi oo socdaal ku tagay xarunta Bushehr ee nukliyeerka lagu soo farsameeyo ee dalka Iran. sidoo kale Ayatollah Ali Khamenei ayaa tagay xaruntaasi nukliyeerka isagana. dad badan ayaa rumaysan in xaaladdu ay ka sii dari karto 60% waxa la saadaalinaya in ay horumar ballaaran samaysay Iran oo ku aadan hubka bacriminta uraniumka ee nukliyeerka. adduunka oo dhan ayaa isha ku haya tallaabooyinka ay qaadayso Tehran. ilaa 2015 waxaa jirtay culays gaar ah oo la saarayay 3.67%. waxaa la sheegay in markaas la isku dayay in hoos loo dhigo samaysiga hubka nukliyeerka ee Iran ay damacsan tahay. qodobka ugu dambeeya ayaan markan eegina daawadayaal ilaa 3 qofood ayaa la soo sheegaya in lagu dilay toogasho ka dhacday goob dadku ay ka dukaameystaan oo ku taala gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. nin qori sitay ayaa rasaas ooda kaga qaaday baa la yiri dadkan. qof rayida ayaana uu ahaa baa la yiri markii hore, laakiin rasaas ayaa markaliya isagoo ridaya la arkay. booliisku waxay sheegeen in suuqa Greenwood Park Mall uu la soo galay qoriga ninkaasi. dhowr qofood ayaana halkaasi uu ku toogtay. waxaana taliyaha booliiska Greenwood Jim Eason uu sheegay in ninka weerarka fuliyay uu 22 sano jir ahaa ka soo jeeda degmada Bartholomew oo u dhow xarunta maxkamadda. si sharci ah hubka ugu dhex qaatay ayaa la isweydiinayaa ninkan iyo waxyaabaha sababay, inkastoo markii dambe ninkii hubaysnaa la toogtay sida uu sheegay sargaalkaas u hadlay ciidamada booliiska ee la yiraahdo Eason. xaalka ayaa kala carar mar noqday iyada oo Indiana Mall suuqa la yiraahdo uu falkan ka dhacay ee shacabka lagu laayay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna warka kala samee TV. intaan wararkan oo kala dib isku arki doonno nabadgelyo.